taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay dad la sheegay in ay ku howlanayeen falal burcadnimo. Warkani waxa magaalada Muqdisho looga soo diray mar kale wariyahayaga Aweys Maxamuud Jilicow. afayeenka ciidanka booliska dowladda Soomaaliya ahna taliyaha qaybta booliska ee gobolka Banaadir General Maxamed Cumar Madaali oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta hay'adda dambi baarista ee dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigay gaari hub iyo rag dhalinyaro ah kuwaas oo ku sheegay inay ahaayeen burcad howlgalo ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgoyna lagu soo qabtay 18 bishan galabnimadii saacada markay 17 waxa ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ay hawlgal ka bilaabeen wadada isku xidha Afgoye iyo Muqdisho. ciidanku iyagu waajibaadkooda gudanaya waxa ka hor yimid kooxo burcad ah oo hubeysan وحبط بالله وأوجه وابن عيدهم كسي شرف ليس قاعدين وحنا قاعد تقصوا لجين أفر كم إذا برعدي برعداس واحد ماشي كوهين بعد أيدك كقاعدان يو لجوي أي شعب يلبستان جديد يلوب تلفون الله كقاعدان بعد باب كقاعدان يحرك شرع دراء يقسميان يجوا قسم يستي شبق أي كل ده وفي بني آدم قاعد وأدنوا للسئين زو كل حجر سيد حيوان وعرفتين بانو من شبق وانا صورتين أرنتو دي بارس بالوحية أفر قري يلوض البابور كاربكا أفر تمحابوس gacanta booliska hadda ku jira ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya waxa kale oo ay maanta soo bandhigeen muuqaalka qof ay ku sheegeen inuu sameeyay lacag dollar faalis ah General Maxamed Cumar Madaali ayaa bulshada reer Muqdisho ka dalbaday in haddii qofkaasi ay arkaan ay ku soo wargeliyaan hay'adaha ammaanka sidoo kale lacagta aad musawirateen ee been abuurka iyo ninka aan isleey ee sawira iyaguna baad goob ay ku jiraan baad goob ay ku jiraan iyaguna shacbiga waxaanu sawirkan ugu soo bandhignay meeshii lagu arko inay noogu soo gudbiyaan ciidamada amniga nabad sugidda iyo booliska inay la soo socodsiiyaan meel alla meeshii lagu arko ninka sawirkaasi waa nin ku hawlan inuu sameeyo lacag been abuura taas oo sharciga dambi ku ah dhaqaalaha dalkana wax yeelaysa waxaan codsanaynaa gacan in lagu siiyo afayeenka ciidanka booliska dowladda Soomaaliya ahna taliyaha qaybta booliska ee gobolka Banaadir General Maxamed Cumar Madaali waxa bulshada Muqdisho uu ka dalbaday in ciidamada nabadgelyada lagu soo wargeliyo sidoo kale cidii aragta gaari nooca raaxada ah oo la sheegay in waxyaabaha qarxa ay saarnaayeen waa kan mar kale General Madaali oo sharaxaya astaamaha gaarigaasi lagu garan karo sidoo kale waxaanu baafinaynaa oo shacbiga ka codsanayna baabuur seerafa oo madow oo muraayadiisuna beersaliin sumadiisuna tahay AC 83 ama 83 in meel alla meeshii lagu arko lagu soo wargeliyo baabuurkaas waxaan ku tuunsanahay inuu sidoo waxyaabaha qarxa shacbiga waxaan ka codsanaynaa inay u ogolaanin inuu meheradahooda hor istaago baarkinkooda galo meesha ay ka shaqaysanayaan ugu yimaado digtooni dheeraad inay ka qabaan marabna baabuurkaas aan sumadiisa soo sheegay waa baabuur seerafa waa madow muraayadiisuna waa madow sumadiisu waa 83 ama waa 82 Aweys Maxamuud Jilicow Royal TV Muqdisho.